Warar qoraal ah goor dambe oo galabta ka soo baxay taliska guud ee ciidanka socdaalka Somaliland oo nuqul ka mid ah u helay xafiiska warqabadka ee telefishinka Shakaal ayaa u dhignaa sidan: waxaan ku wargelinaynaa ajaanibta sifada sharci darrada ku jooga guud ahaan dalka Somaliland inay kaga baxaan muddo 20 cisho ah oo ka bilaamaysa 28 bisha 7 2022 ilaa inta laga gaarayo 17 bisha 8 ee isla sanadkani. sidoo kale waxaa lagu yiri qoraalkan waxaa lagu wargelinayaa shirkadaha, hay'adaha iyo ganacsatada ay ka howlgalaan shaqaale ajaanib ah inay ka shaqayn karaan kaliya ajaanibta haysta dalku jooga saxda ah sida fiisaha ama warqadda qaxoontiga. waxaa looga digayaa ayaa lagu yiri qoraalkani goob kasta oo ganacsi, shirkad amba hay'ad ee laga helo shaqaale bilaa sharci ku jooga dalka Somaliland oo ka shaqaynaya in laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan. wakiilaha goobtaasi gaashaanle dhexe Cali Jahuur Nuur, afhayeenka ciidanka socdaalka Somaliland, ayaa ku saxeexnaa warkan ka soo baxay taliska guud ee ciidanka socdaalka Somaliland.